wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka ugu doorka roon ee janalka gunta wararka. qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah dad mas'uuliyiin oo doon kula degtay magaalada Beledweyne iyo xaalad halis ah oo laga soo sheegayo Jubbaland oo ku hanjabtay inay xoog ku soo furanayso wasiirkeeda amniga Cabdirashiid Janan. gawaari qaraxyo sida oo Muqdisho soo galay iyo fariin digniina oo ay soo saareen hay'adaha amniga. xisbiga uu hogaamiyay Sheekh Mukhtaar Roobo oo qoraal ka soo saaray warbixintii qaramada midoobay ee ku saabsanay dadkii lagu laayay Baydhabo. senataro fariin adag u diray ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre kana hadlay xaalka magaalada Beledweyne iyo Sheekh Shaakir oo saraakiil amisom kula kulmay magaalada Dhuusamareeb. intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii wararka ugu doorka roonaa. markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo faahfaahsan. wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in la soo badbaadiyay qaar ka mid ah dadkii la socday doontii ku gadoontay fatahaada webiga. mas'uuliyiinta doonta la socday ee la soo badbaadiyay ayaa waxaa ka mid ah duqa magaalada Beledweyne Safiya Sheekh Cali, gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale. ilaa hadda waxaa la laayahay in ka badan 10 ruux oo isugu jira mas'uuliyiin iyo askar kuwaas oo ka mid ahaa dadkii doonta saarnaa. doonta ayaa ku gadoontay xaafadda Xawataako ee magaalada Beledweyne oo biyo badan ay buuxaan. dadka qaar oo dabaashay ayaa waxay dusha sare ka fuuleen guryo iyo masaajid halkaasi ku yaalay, waxaana xaafadda ka jira xaalad go'doon ah. ciidamada Jabuuti iyo sidoo kale ciidamada amisom ee ku sugan gobolka Hiiraan ayaa la soo sheegayaa inay ka qayb qaadanayaan gurmadka lagu baadigoobayo dadka maqan, waxaana la kiciyay dhowr diyaaradood oo helicopter si ay uga qayb qaataan badbaadinta iyo raadinta dadka maqan. xaalad adag ayaa ka taagan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, waxaana magaalada ay u baahan tahay gurmad degdeg ah. dhanka kale, guddiga gurmadka fatahaadaha ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta si toos ah ula hadlay bulshada Soomaaliyeed, waxayna ka hadleen xaaladda ka jirta magaalada Beledweyne. guddiga ayaa si cad u sheegay in xaaladda magaalada Beledweyne ay tahay mid khatar ah isla markaana loo baahan yahay in gurmad degdeg ah la gaarsiiyo. gudoomiyaha guddiga ahna wasiirka wasaaradda gargaarka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Xamse Saciid Xamse ayaa ku dhawaaqay in roobabkii xalay ka da'ay magaalada Beledweyne uu saameeyay garoonkii diyaaradaha ee magaalada isla markaana gabi ahaanba uu xirmay. guddiga ayaa sidoo kale shacabka Soomaaliyeed waxay ku booriyeen in ay ka wada qayb qaataan sidii walaalahooda loo caawin lahaa. gudoomiyaha guddiga ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday in ay ka wada qayb qaataan sidii walaalahooda dhibaataysan ee gobolka Hiiraan loo caawin lahaa, gaar ahaan ganacsatada ku nool Galmudug, Puntland iyo gobolada kale ee ku dhow gobolka Hiiraan, isla markaana ay ka qayb qaataan wixii tabarucaada oo la gaarsiin karo dadkaasi dhibaataysan. gudoomiyaha sidoo kale waxa uu sheegay in gurmadka uu ku bilowday dardar xoog leh, isla markaana dowladda federaalk ee Soomaaliya gurmadkii ugu horeysay ee geysay magaalada Beledweyne. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa gurmad kale oo xoog leh waxay u dirtay magaalada Beledweyne, waxaana la filayaa in saacadaha soo socda ay gaaraan magaaladaasi. maamulka Jubbaland ayaa mar kale waxa uu si kulul uga hadlay xariga dowladda federaalk ee Soomaaliya ay dhowr bilood ka hor magaalada Muqdisho ugu geysatay wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janan. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa sheegay in Cabdirashiid Janan uusan ahayn dambiile, isla markaana dowladda federaalk ee Soomaaliya looga baahan yahay inay sii dayso. sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa guddoonka golaha shacabka iyo aqalka sare ka dalbaday inay kaalintooda ka qaataan sidii loo deyn lahaa wasiirka amniga Jubbaland oo haatan u xiran dowladda federaalk ee Soomaaliya kuna xiran magaalada Muqdisho. wasiir ku-xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in haddii la sii deyn waayo wasiirka amniga Jubbaland cawaaqib xumada ka dhalata mas'uuliyadeeda ay qaadi doonto dowladda federaalk ee Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa 31 bishii hore ee Agoosto ee sanadkan waxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ka qabatay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan isagoo ku sii jeeda magaalada Addis Ababa. Cabdirashiid Janan ayay dowladda federaalk ee Soomaaliya ku eedeysay in uu sameeyay xadgudubyo ka dhan bini'aadanimada. kiiska loo heeso Cabdirashiid Janan ayay mar kale dowladda federaalk ee Soomaaliya ku micneysay in uu yahay tacadiyo ka dhana shacabka gobolka Gado oo uu geystay sanadkii 2015.
xisbiga amniga iyo cadaaladda ee uu hogaamiyo sheekh mukhtaar roowo cali abuumansuur ayaa qoraal ka soo saaray warbixintii qaramada midoobay ee ku saabsaneyd doorashadii ka dhacday magaalada baydhabo. warbixinta qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in la musuq maasuqay doorashadii ka dhacday baydhabo islamarkaana laaluush la siiyey dhammaan xildhibaanada maamulka koonfur galbeed. sidoo kale warbixinta ayaa lagu sheegay in la laayay dad shacaba oo ka banaanbaxaya xarigga loo geystay sheekh mukhtaar roowo abuumansuur oo ilaa iyo hadda u xiran dowladda federaalk ee soomaaliya. xisbiga amniga iyo cadaaladda ee uu hogaamiyo sheekh mukhtaar roowo cali abuumansuur ayaa si weyn usoo dhaweeyay warbixinta kooxda kormeerka caalamiga ah ee monitoring group ay kasoo saartay dhibkii ka dhacay magaalada baydhabo sanadkii lasoo dhaafay ee 2018 halkaas oo dad shacaba lagu laayay. xisbiga ayaa sheegay in si sharci daraa loo afduubtay musharaxii aqlabiyadda badnaa ee koonfur galbeed sheekh mukhtaar roowo cali abuumansuur isagoo xilligaasi ku guda jiray howlihiisa ololaha doorashada. xisbiga ayaa sidoo kale sheegay in la xasuuqay shacab aan waxba galabsan oo aragtidooda dastuuriga ah dhiibanayay sidoo kalena sameynaya dibadbaxyo nabadeed oo ay kaga soo horjeedaan xarigga sharci darada ee loo geysta sheekh mukhtaar roowo abuumansuur iyo sida dowladda federaalk ee soomaaliya ay u afduubtay doorashadii ka dhacday baydhabo. ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyre ayaa lagu wadaa inuu gaaro magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka taagneed xiisad siyaasadeed oo aada u culus oo ku aadan hanaanka loo dhisayo maamulka galmudug oo ay isku khilaafsan yihiin ahlu sunna iyo dowladda federaalk ee soomaaliya. xiisada siyaasadeed ee ka taagan dhuusamareeb ayaa timid kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha ay magacowday guddiga farsamada maamul dhisida galmudug halka maamulka ahlu sunnana ay magacaabeen guddi kale kii horena ay kasoo horjeesteen. kulamo iska soo horjeeda iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aada u xoogan ayaa ka socda magaalada dhuusamareeb. labadii maalin ee lasoo dhaafay magaalada ayaa martigelinaysa ciidamo aada u fara badan oo ka kala imaanaya gobolada dalka iyo magaalada muqdisho. warar aan helna ayaa sheegaya in dowladda federaalk ee soomaaliya ay wado dadaalkii ugu dambeeyay ee lagu wiiqayo awoodda maamulka ahlu sunna ciidamo dheeraadna lagu geynayo magaalada dhuusamareeb. safarka ra-iisul wasaaraha ee magaalada dhuusamareeb ayaa noqonaya kii saddexaad ee uu ku tago magaalada dhuusamareeb. ugu dambeyn madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha dowladda jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa u muuqda kuwo guuldaro weyn kala kulmay loolankii kuraasta urur goboleedka igaad. abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya islamarkaana ah guddoomiyaha urur goboleedka igaad ayaa waxa uu si rasmi ah u magacaabay xilka xogayaha fulinta ee ururkaas. madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa xilkaas dad fara badan horay ugu sharaxay. madaxweyne farmaajo ayaa shaqsi u diyaariyey in loo magacaabo xilkaas halka madaxweynaha jabuuti isaguna uu qorsheynayay in qof jabuutiyahana uu u buuxiyo booskaasi balse labadooduba guuldaro weyn ayay kala kulmeen kadib magacaabistii abiy axmed. abiy axmed ayaa xilkaasi u magacaabay nin dictora oo horay u ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda dowladda etoobiya wuxuuna xilkaasi kala wareegi doonaa maxbuub macalin oo isaguna kasoo jeeda dalka kenya. magacaabista abiy axmed ayaa muujinaysa mid soo afmeeraysa dadaaladii madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne ismaaciil cumar geelle ay ku rabeen in xilkaas loogu magacaabo shaqsi kasoo jeeda labadaasi dal taas oo ka dhigan inay ku guuldareysteen loolankii ka socday gudaha dalka etoobiya. warar soo baxay ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu qorsheynayo in xilka guddoomiyaha urur goboleedka igaad uu ku wareejiyo madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta kaas oo si dadban ay isku afgarteen kadib kulan ka dhacay addis ababa oo ay yeesheen labada madaxweyne. dowladda jabuuti ayaa 10kii sano ee u dambeysay waxay dareensaneed in dowladaha etoobiya iyo kenya ay isku wareejinayaan xilalka urur goboleedka igaad iyadoo madaxda jabuuti ay aaminsan yihiin in labadaasi dal ay isbahaysi xoog leh ka sameeyeen gobolka sida uu daabacay wargeys ka soo baxa dalka etoobiya. kenya ayaa khilaaf xoogan waxuu kala dhexeeyaa dowladaha soomaaliya iyo jabuuti halka dowladda jabuuti ay isku jihaysay in ay hesho kursiga golaha ammaanka ee afrika. dowladda soomaaliya ayaa dhankeeda ku adkeysanaysa kiiska dacwadda badda ee kala dhexeeya kenya. dowladaha ku bahoobo urur goboleedka igaad ayaa u muuqda xilligan mid khilaaf baasan uu ka dhex jiro taas oo loo saadaalinayo in guddoonka hadda oo abiy axmed uu ku howlan yahay in uu isku soo dhaweeyo madaxda sidoo kalena uu sameeyo dejin xaaladahaasi ah.
guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen janalkan. daawada haddii aad ku cusub tahay janalka waxaa saartaa subscribe